waxaan joognaa madal laga dhisayo masjid loogu magac daray Al-Huda oo ku yaala degmada Yaaqshiid garan xaafadda Jungala. Masjidkan waxaa dhisay dadka deegaanka oo isxilqaamay waxa ayna wali u baahan yihiin in gacan lagu siiyo masjidkan loo dhisi lahayn iyaga oo markaas ku baaqaya in dadka Ilaahay wax siiyay iyo kuwa wax awooday ee sadaqa la bixi kara ku darsadaan beedkan alle. waxaan la hadli doonaa dadka gacanta ku haya ee masjidka dhisaya iyo sidoo kale injineerada waxa ay noo sheegeen in ballanqaadyo kooban ay hadda haystaan ha yeeshee waxa ay leeyihiin faanole fari ka maqadno maalinta indhaha soo kala qaaday waxaan maleynaa ninkan hadda idin la hadlayo masaajidkan maalinta indhaha soo kala qaaday waa dhisnay waqtigii aniga aan indhaha soo kala qaaday marka waxaan ugu mahad celinaynaa dadka muslimiinta ah oo muxsiniinta ah oo ka qayb qaatay muxsinaadka qaasatan waxaan ugu mahad celinaynaa dadkii nagala qayb qaatay guud ahaan sida idaacadda maanta oo kale sida khayr kale ay nagala garab istaagsan tahay in masaajidkan uu dhismo waan ugu mahad celinaynaa waxa hadda anaga abaalkeeda bixi karna ma Ilaahay baa u jiseenayo waxaan jecelnahay haddii alla yiraahdo in ay nagala qayb qaadan doonto qof allaale qofkii maaragtay arka kilibkeenana insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagala qayb qaato khayrkan aan masjidku wuxuu ku yaalaa degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda Jungal tilmaan khaas markii aan ka sii bixiyo markii jidka soddonka lagu joogo fagax dhinaceeda meesha Dr. Bushkaleeti leexadka markii laga soo leexday qiblada xaggeeda la soo aado ateenada nationka halkaas uu ku yaala xaafad leeyahay xaafadda afarta geed masjidku wuxuu ku magac dheeraa jiray xilliga hore masjidka foornada ama masjidka Xaaji Adimow masjidku hadda magaciisu maalmahan dambe oo hay Masjid Al-Huda dhanka kale markii la fiiriyo laamiga amba dhanka ruux soo baxa wadada ka soo leexata Al-Fajri taas ayaa hor marta masjidka marka sidaas ayuu wuxuu ku yahay masjid bartamaha uga yaala xaafadda Jungal markaan u soo laabana baahida xaafadda beedkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala in muddo ah ayaa oo cariiri ahay xaafadda hareeraheeda markii la fiiriyo wax masaajid oo ka dhow ma jiraan masjidkan waxa uu jiray in ka badan 500 sano waxa uu ahaa in ka yar hal boos oo markii hore masjidkan ka dhisnaa dadka deegaanka ayaa hadda waxay goosteen in ay ballaariyaan kadib baahi saa'id ah oo la tabay in loo qabo halkan masjidkan la mid ah hadda kuma yaalo dadku deegaanka iyo sidoo kale guddiga gacanta ku haya waxa ay dalbanayaan in qayb laga geesto amba gacan laga geesto masjidkan dhismihiisa ballanqaadyo gaaban ayay noo sheegeen in ay heleen masjidkan waxa uu ka mid yahay masaajidda ugu qadiimisan ee ku yaala degmada Yaaqshiid garan xaafadda Jungale guddigu waxa sidoo kale ay maanta TV u sheegeen in ilaa ay hadda ayna helin ballanqaad ah mid lagu dhisay masjidkan oo dhameystiran a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim kollay wixii waraha culimada iyo maamulka masjidka ayaa hortay sheegay kollay al-kalaamu qalla wadalla ayaa la dhahaa kollay kalaam waxa la yiri intii yar oo wax lagu fahmaya muhiim u ah sideedaba meesha masjid ayaa la joogaa masjidkana wuxuu rabaa in loo dadaalo oo muhiimadiisa iyo aakhirka in lagu tukado oo dadka muslimiinta ay ka faa'iideystaan oo cilmi lagu barto oo wax walba laga faa'iideysto mustaqbalka ayaa aad loo jecel yahay marka maanta waxaan jecelnahay in dadka muslimiinta ah aan la mid dhigi karin qofka Ilaahay wax u dhiibayo fursad waxaad haysataa qaali ah beedkan iyo buyuuda la mid ah uga faa'iideysta hantideena faa'iidooyinka aad ka gaari doontiin aad ay u badan yihiin sadaqada aad ku baxsateen beedkan Ilaahay oo sadaqada jaariyada ah waxyaabaha la soo koobi karan waa qofka caafimaad raba Ilaahay ayaa ku daawayhaya qofka muraad khaas leh Ilaahay ayaa muraadkiisa ku sahlay nabigana wuxuu dhahay calayhi salaatu wa salaam as-sadaqatu tasuddu 70 baaban min as-suuq Maxamed Cabdullaahi Umar maanta TV Muqdisho